isqabqabsiga ka dhex aluusan Naciimo Joker iyo Daahir Cabdulle Calisow ayaa mar kale soo ifbaxay 24 saacadood ee ugu dambeeyay video uu barta TikTok soo dhigay Daahir Calisow oo uu ku doodayo in uu ku sugan yahay halka ay degan tahay Naciimo Joker iyo sidoo kale saygeeda, isla markaana uu ku andacoonayo in uu gaari ku hormaray guriga ama daarta ay ka degan tahay magaalada Minneapolis ee cariga Mareykanka. Haddaba arrintan ayaa si aada hadalhayn u dhalisay iyadoo Naciimo Joker ay siyaabo kala duwan uga hadashay, iyadoona sheegtay inay jiraan gabdho dhowaanahan aada u difaacaya Daahir Cabdulle Calisow kuwaasoo dagaal culus kusoo qaaday Naciimo Joker, islamarkaana ay sheegtay mid ka mid a in ay soo duubtay videogaasi isla marhaantana ay u dirtay Daahir Cabdulle Calisow. Sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in gurigeeda ama daarta ay degan tahay sarteeda in ay ku dhegan yihiin ama ku rakaban yihiin kaamirada qarsoon ee duubta muuqaalada qarsoon ee loo yaqaano CCTV camera. iyadoo arrinkan ka hadlayso muuqaal ayaan idinkaga haynaa. intaan u gudagelin, ugu horeyn haddii ay tahay markaa koowaad oo aad nagu soo biirayso, subscribe saar janalkan, sidoo kale la garee muuqaalkan iyo muuqaalada halkan aan kuu soo gudbino. Maamuus Media Production ayaad nagala jaan qaadaysaan saaxiibada aynu jecelnahayow. inoo bilaabo qodobkayaga ama muuqaalkayaga maanta waxa uu inoo xambaarsanaan doonaa arrintan imika soo ifbaxday ee ku aadan Daahir Cabdulle Calisow iyo sidoo kale Naciimo Joker. marba marka ka dambeysa waxaad moodaa Daahir Cabdulle Calisow iyo sidoo kale Naciimo Joker in seefta ay isu sifeysanayaan, islamarkaana ay weli weerar xoogan ay iskugu jeedinayaan baraha bulshada, siiba iyagoo weerar dhanka afka isu qaadayo oo ay isku marinayaan social mediaha barta TikTok. haddaba Naciimo Joker iyo goordhoweed waxa ay gaashaan ku dururtay, islamarkaana waxba kama jiraan ku tilmaamtay in Daahir Calisow uu kasoo caga dhigtay magaalada Minneapolis ee cariga Mareykanka. waxa ay sheegtay in dad badan ay ka caawiyeen video laga soo duubay guriga ay degan tahay, islamarkaana sidaasi uu Daahir Cabdulle Calisow ugu andacoonayo in uu isagu joogo wadanka Mareykanka, uu ka baadigoobay ninka la yiraahdo Ilka Case Qays halka uu degan yahay, sidoo kalena uu halkaasi socod ku maray. haddaba arrintan ayay siyaabo kala duwan uga hadashay Naciimo Joker. haddaba si marka loo fiiriyo, Naciimo Joker waayadan waxay si aada isu haysteen hablo iyagu baraha bulshada kasoo ifbaxaya, islamarkaana hadallo kulkulul cay aflagaado isu marinaya baraha bulshada, kuwaasoo qaarkood Naciimo Joker eedeymo kala duwan u jeedinaya iyagoona la safanaya garabka Daahir Calisow, halka Naciimo Joker qudheedu ay iyaduna iska difaacaysay wax weliba ama weerar kasta oo lagu soo qaado, ha noqdo weerar dhanka afka ah oo ay kusoo qaadayaan hablahaasi. haddaba hablahan oo ay ku jirto inan la yiraahdo Ikran, islamarkaana iyadu la joogto wadanka Mareykanka, kuwaasi oo dagaal cusub imika uu ka dhex qarxay Daahir Calisow iyo sidoo kale anirahde Naciimo Joker iyo sidoo kale saygeeda Ilka Case Qays, oo isu dayeyso in ay soo gudbiso muuqaalada la xidhiidha Naciimo Joker ee lagu tuhmayo in ay iyadu si toosa ula xidhiidhaan. arrimahan ayaa ka mid a waxyaabaha ay Naciimo Joker ka hadlaysay saacadihii aynu kasoo gudubnay. haddaba iyadoo weli bil barakaysan lagu jiro saaxiibada aynu jecelnahayo, islamarkaana 20 ugu dambeysay ee bisha barakaysaneed ama 10kii dhexaad imika aynu gudagelayno, waxaan filayaa in laga waantoobi doono weerarada caynkan oo kale ah, halka Naciimo Joker iyo Daahir Calisow aanay u muuqan laba qof oo isu tanaasuli doono amaba dagaalkooda halkaasi kusoo afmeeri doono. waxaana arrintan ay tahay mid mar kale ama marba marka ka dambeysa wejiyo cusub sii yeelanaysa. iminka waxaa Daahir Calisow lala wadaagaya fiidiyoyo, waxaana muuqataa in Naciimo Joker agagaarkeeda ay iyadu ku hareeraysan yihiin dadyo kala duwan, kuwaas isku dayay in halka ay iyadu jaani cirab dhigto amaba meel weliba ay taagan tahay Naciimo Joker daqiiqad xogteeda nolosha in ay usoo gudbiyaan oona soo saaraan social mediahana ay ku faafiyaan si ceebaheeda dadweynaha ugu soo bandhigaan. arrintan ay Naciimo Joker si aada kulul uga hadashay. sidoo kale Ilka Case Qays muuqaal uu kala soo muuqday Naciimo Joker ayay labaduba waxa ay ku beeniyeen sheegashooyinkaasi ku aadan in Daahir Calisow uu isagu socdaal ku yimid Mareykanka, islamarkaana Naciimo Joker halka ay ka degan tahay dalkaasi Mareykanka uu soo booqday isagoo weli baadigoobayo gurigeeda. hase yeeshee haddana waxay leedahay dad wax magarata ah oo
markaasi ina qiyaamay oo dad igu dhowaa bulshada oo aynu ehel iyo asxaab ahayn ayaa gurigayga ka duubay fiidiyogaasi. Sidaasi ayuuna ku gaaray Daahir Cabdulle Calisow fiidiyogaasi. Daahir Calisow ayaa TikTok kusoo gudbiyey fiidiyo uu dadka uga sharaxayo guriga ay degan tahay Naciimo Joker, isagoo weliba cod background hoose kaga hadlayo, isla markaana iska dhigayo in uu joogo waddanka Mareykanka, gurigeedana uu hormarayo. Arrintan ayay ka hadashay Naciimo Joker saacadihii aynu kasoo gudubnay, bal aynu maqalno muuqaalkaasi aynu isla eegno saaxiibada aynu jecelnahay.